السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل والبا joogtaan janalka daawanaysa waa Cali Nuur Official. maanta waxaan idin wadnaa qiso aad u cajiib ah oo aan ka soo xulnay meelo fara badan. qisadaas oo ku saabsan sida soo socoto. aad baad u hunguri weyn tahay Diinow, waxaad dhibaysaa naftaada. ma awoodo hooyadeeyay, anigu waxaan jecelahay xalwada, laakiin waxa aad cuntaa xalwo fara badan. adigu waxba kaama gelin wax xunkayga. hadalka ma dhamaysatay Diinow? haa hooyo, waan dhamaystay. waxaan doonayaa inaan qiso idinka sheekeeyo, adigayna khaas kugu tahay. mid ka mid ah keymaha waaweyn waxaa ku noolaa 3 jiir oo jeclaa ciyaarta iyo boodboodka. si dhaqso ah ayadoo xilli fog ka soo wareegan, cirkii baa daruureystay, waxaana bilowday guwac iyo jac. daruurihii madoobaa waxa ay qariyeen dhulkii. markiiba waxaa da'ay roob aad u xoog badan. waxaa joogtoobay roobka di'idiisa, waxaana la socday dabayl aad u xoog badan oo maalmo badan socotay. jiirarkii waxa ay go'aansadeen inay raadsadaan cunno ay cunaan, una raadsadaan tuulada u dhow. waxa ay baxeen habeen roob xoog badan da'ayo, dabayliyo xoog badnaana ay dhabanayaan. yaa allah, roobkan oo kaleeto weligay ma arkin. ma garanayo intuu roobkan socon doono. anigu waxa aan dareemayaa gaajo daran. 2 maalin ma cunin wax cunto ah. waxa ay bilaabeen jiirarkii in ay raadsadaan cunno, maxaa yeelay aad ayay u gaajaysnaayeen. ma garanayo si aan u gaari doono berri, maxaa yeelay aad ayaan u gaajaysanahay. si kedis ah mid ka mid ah jiirarkii waxa uu arkay iftiin ka soo baxaya guri. waxa ay fuuleen jiirarkii guriga iyagoo u maraya tuubo yar oo guriga derbigiisa ku taalo. markii ay soo gashayba waxa ay aragtay jab weyn oo xalwo ah oo miiska dushiisa saaran. waxa ay ku soo degtay daahii, waxa ayna ku imaaday dhulka. war waxaan maxaa weeyaan jab aad u weyn oo xalwo ah, waa inaan gaarnaa. war aan orodno oon gaarno. war noorodsiya, waan gaanjaysanahay. jiirarkii 3 ahaa waxa ay fuuleen miiska, waxa ayna bilaabeen inay cunaan xalwada. daqiiqado kadib waxaa dhargay 2 ka mid ah jiirarkii, laakiin jiirkii 3aad weli ma uusan dhargin. war cuntada iska daa, naftaada ha dhibin. maya, ma doonayo. maantaan ceel joogaa. ma doonayo inaan tago ilaa aan dhargo. laga yaabaa inaan helin cunno maalmahan soo socda. war naga keen meeshaan aan ka tagnay. iska taga adinka, waa idinka daba imaan kadib marka aan soo dhargo. jiirkii 3aad waxa uu ku haray miiska ilaa uu cunay cunno aad u tiro badan, ilaa calooshiisa ay soo weynaatay, mana uu awoodin inuu dhaqdhaqaaqo. iyadoo xaaladiisa xun tahay
waxa uu soo gaaray daahii si uu ugu baxsado guriga. Waxa ay la noqotay la yaab, waxa uu kori waayay daaha iyada oo ay ugu wacan tahay calooshiisa uu ka buuxiyay cuntada. Waxaan dareemayaa xanuun daran. Waa inaan sugaa ilaa ay cuntadan iga degayso oo nafis helayo si aan gurigan ugu baxsado. Isla markiiba waxaa imaaday milkiilihii guriga. Waxa uu arkay xalwadii oo cunan, waxa uuna markiiba gartay in uu guriga jiir ku jiro. Waxa uu bilaabay in uu sabuul soo qaado si uu dabin ugu dhigo, kadibna uu u dilo. Saacado kadib, jiirkii waxa uu doonay in uu baxsado, waxa uuna fuulay daahii, laakiin waxa uu arkay sabuul galley. Waxaan maxaa weeyaan? Sabuul cusub ah igama harayo, waan qaadanayaa. Fadlan, haddaad fiidiyowgan daawatay waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saarto. Waxa uu u soo degdegay dhinacii sabuulkii isaga oo aan arkaynin dabinkii loo dhigay. Waxa uuna ku sii daayay dabinkii kadib markii uu galay. Kadib, jiirkii waxa uu bilaabay in uu fikiro oo weliba xasuusto qaladkii uu mar hore uu sameeyay, laakiin waxa ku dhacay geeri iyada oo gurigiisa ugu wacan tahay. Laakiin ma uusan badbaadin, sidii ayuuna ku dhintay. War qisadaas maxay ahayd? Jab xalwo ah. War aniga zaa'id baan u jeclahay, xitaa hadday ii soo shiirto. Diinow. Hooyo, aniga waan kula kaftamay, ma cuni doono ilaa jab yar oo xalwo ah mooye. Haddaad ka heshay fiidiyowga, fadlan saar subscribe, like, share. Waadna mahadsantihiin asxaabteena sida qiimaha badan oo noogu xiran tihiin.